kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaynu dul istaagi doonaa dhacdadii dhacday 27 sano ka hor maanta oo kale dagaalkii 3 ilaa 4 Oktoobar ee 1993 ee dhexmaray xoogagii USC SNA ee Jarnaal Maxamed Faarax Ciidiid hogaaminayay iyo ciidamadii UNISOM 2 ee uu Mareykanku hogaaminayay ciidamadaasi oo tiradoodu kor u dhaafaysay 38,000 oo askari oo laga soo ururiyay daafaha dunida tiro ahaanna waxaa hormuud ka ahaa Mareykanka waxayna ku hubaysnaayeen hubka waqtigaasi ugu casrisanaa dunida diyaaradaha AC-130 helicopter Cobra iyo Black Hawk gawaarida gaashaaman taangiyada M1A1 iyo kuwa kale ciidamadaasi oo bilowgii howlgalkooda Soomaaliya madaxweyne George Bush oo ugu magac daray rajo soo celinta ama Restore Home walow la maldahay gurmad aadanimo qorshaha dhabta waxa uu ahaa in Soomaaliya laga dhigo shaybaar lagu tijaabiyo dhaqangelinta hanaanka New World Order oo ah nidaam uu Mareykanku dejiyay in adduunka oo dhan laga maamulo aqalka cad ee Washington maadaama quwadii Sofiyeetigu u burburay nidaamkan dunida ee cusub ee New World Order oo ah riyo maalmeed iyo rajameehow Mareykanku ku doonayay inuu keligii adduunku ku amartaagleeyo mehergelin dagaaladii qaraaraa oo labada dhinacba ay ku riiqmeen walow dhanka Soomaalidu qasaaruhu u badnaa haddana jabhadii Ciidiid waxa ay ku naalootay guul ay gidaaradu ku jiideen meedadkii askartii Mareykanka diyaaradaha AC-130 oo lagu talagalay caabinta quwadii Warsaw ayaa markii taariikhda ugu horeysay loo adeegsaday dagaal qaaradda Afrika ka socday siiba jabhadii Jarnaal Ciidiid waxaana askartii jananka ay soo rideen laba diyaaradood halka ay dagaalku ku dileen 18 askari oo Mareykan ah haddaba waxaynu soo koobi doonaa sidii askartii Mareykanka ay ugu argagaxeen dagaalka ay la galeen ciidamadii uu hogaaminayay Ciidiid saskii aan ka qaaday howlgalkii Soomaaliya wali ma hilmaamin waa sida uu yiri Jeff Straker askari hore oo Mareykan ah waxa 29 sano laga joogaa markii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya taasoo horseeday dagaal sukeeye oo halakeeyay dalka sanado badan xaaladii bini'aadanimo ee ka dhalatay dagaaladii sukeeye ayaa keentay in dalal badan oo caalamka ah ay ku dhawaaqaan howlgal loogu magac daray howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay taasoo keentay in ciidamada howlgalka qaramada midoobay loo diro Soomaaliya in ka badan 20 askari oo ka tirsanaa howlgalka qaramada midoobay ayaa lagu dilay Muqdisho taasoo keentay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay amraan in la soo xiro Jarnaal Maxamed Faarax Ciidiid maadaama lagu eedeeyay inuu isagu ka dambeeyay dilkii ciidamada qaramada midoobay amarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhaliyay in ciidamada Mareykanka ay Muqdisho ka fuliyaan howlgal lagu doonayo in lagu soo qabto Jarnaal Maxamed Faarax Ciidiid taasoo keentay in Muqdisho ay ku dagaalamaan jabhadda USC iyo ciidamadii Rangers ee Mareykanka Jeff Straker oo ah jarnaal hore oo Mareykan ah oo howlgab ah balse hore ugu tirsanaa ciidamada Mareykanka ee sida gaarka ah u tababaran ee Rangers ayaa wareysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in howlgalkii uu qaybta ka ahaa ee Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya sanadkii 1993 Jeff Straker oo inta aanan howlgalka rajo soo celinta loo dirin ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka horeyna ugu soo dagaalamay dalal ay ka mid yihiin Kuwait, Panama, Iraq iyo Afghanistan ayaa waxa uu sheegay in ujeedka Soomaaliya loo geeyay ay ahayd sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen Jarnaal Maxamed Faarax Ciidiid waxaana uu ka sheekay wixii dhacay horaantii bishii Oktoobar ee sanadii 1993 aniga iyo guutadii aan ka tirsanaa waxaana loo diray howlgalkii toddobaad oo ahaa kii ugu dambeeyay ujeedkiisuna ahaa sidii aan gacanta ugu soo dhigi lahayn Ciidiid waana xilligaas markii ay dhacday diyaaradii Black Hawk Down ee ciidamada Mareykanka ayuu yiri Jarnaal Jeff Straker oo ka sheekay wixii dhacay xilligaasi isagoo la hadlayay xarunta American Veterans Center Jeff waxa uu sheegay in cabsidii iyo argagixii uu kala kulmay howlgalkii lagu soo qabanayay Ciidiid oo ahaa mid uur ku taalo ku noqotay waligiina aanu hilmaami doonin
Jeff oo dhowr sano ka hor howlgalka guursaday ayaa sheegay inuu aaminay in aanu dib dambe u arki doonin xaaskiisa iyo canuga ay caloosha ku siday marka loo eego xaaladii uu xilligaasi ku sugnaa maadaama uu hogaaminayay howlgalka. Waxa uu intaasi raaciyay saskii aan ka qaaday howlgalkaas uu weli maskaxdiisu ka guuxayo. Waxaanu aadnay suuqa Bakaaraha oo ah halka ay ku sugnaayeen Caydiid iyo saraakiil kale oo la socotay. Markii aan halkaasi u dhaqaaqnay ayaa wadooyinka Muqdisho waxaan kala kulannay wax aanan malaysanayn. Qaar badan oo ka mid ah ciidamadii la socday ee saarnaa baabuurka gaashaaman ee Humvee waa ay dhinteen, kuwa kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dhexda la inoo galay, ayuu raaciyay. Dhowr daqiiqo kadib, taliyihii hogaaminayay ciidanka ayuu sheegay inuu la soo hadlay kuna amray in ay dib ugu soo laabtaan magaalada. Waxaana bilaabay in aan duceysto maadaama aan yaqiinsaday in aan dhimanayo. 4tii bishii Oktoobar ayay ahayd markii la soo riday diyaaradii loogu magac daray Black Hawk Down ee ay ku dhinteen ciidamada Mareykanka ee la sheegay in ay gaarayeen 18 askari. Waxaana xilligaasi la sheegay in sidoo kale magaalada Muqdisho lagu dilay dad badan oo rayid ah. Jeff oo 20 sano kadib dib ugu laabtay magaalada Muqdisho sanadii 2013 ayaa waxa uu sheegay in Alle mahadi ay tahay in mar kale uu Muqdisho tagay isagoo aanan cabsanayn. Waxba ma aanan dareemin ilaa iyo intii aan dib ugu laabtay Muqdisho. Alla ayaa i badbaadiyay, mana doonayo in aan seego fursad labaad ee uu Alle i siiyay ee ah in aan ku noolaado, ayuu yiri. Howlgalkii rajo soo celintu ayaa u ahaa mid ay hogaaminayeen ciidamada Mareykanka iyo xulufadiisa. Ujeedka howlgalka ayaa xilligaasi lagu sheegay in lagu difaacayo qaramada midoobay iyo sidii loo dejin lahaa colaadda Soomaaliya. Gargaarna loo gaarsiin lahaa dad badan oo xilligaasi baahi u dhimanayay kuna sugnaa koonfurta Soomaaliya. Markii magaalada Muqdisho lagu dilay ciidamadii nabad ilaalinta ee ka socday dalka Pakistan, golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu meel mariyay qaraar uu tirsigiisu ahaa 837, kaas oo dhigayay in tilaabo walba ay qaadi karaan si gargaarka loo gaarsiiyo dadka Soomaalida. Haddaba 27 sano kadib, Soomaaliya weli waxaa ku sugan ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socda Midowga Afrika. Tan intii aanu kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah, waxaynu idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.